waa biyo oo uu qof walba oo muslim ah garanayo qiimaha ay leeyihiin, ahna biyo laga jecel yahay biyaha kale ee caadiga ah. Sidoo kale waa biyo uu nabigeena suuban uu ku sheegay inay yihiin biyo markii la cabayo loo niyeysto wax fiican, in la helayo wixii fiicnaa ee loo niyeystay. Sidoo kale waa biyo keliya laga helo hal magaalo, magaaladaas oo ah magaalada ugu barakeysan caalamka, ahna magaalada loo xaji tago. Zamzam ama biyaha Zamzam ma ahan markii ugu horeysay aynu maqlayno. Sidoo kale waxaanu la soconaa in biyaha Zamzam aysan la mid ahayn biyaha kale ee caadiga ah, maxaa yeelay waa biyo uu barakeeyey Alle subxaanahu wa tacaala. Waxay ahayd markii ugu horeysay ee ay biyaha barakeysan ee Zamzam ay soo burqadeen, markii uu Nebi Ibraahim calayhi salaatu wasalaam kaga tegay xaaskiisa iyo wiilkiisa oo Nebi Ismaaciil ah goob saxaro ah. Nebi Ismaaciil hooyadii oo markaa noqotay mid ku dhex ordaysay labada buurood ee kala ah Safa iyo Marwa, oo raadinaysay qof caawiya iyo qof u gargaara iyada iyo wiilkeeda yar ee Nebi Ismaaciil. Kadib markii ay 7 jeer ku dhex socotay buuraha kala ah Safa iyo Marwa, ayaa waxay maqashay cod, kadibna waxay aragtay biyo ka soo burqanaya dhulka. Kadibna si degdeg ah ayay u soo gaartay iyada oo isku xirtay biyihii, waxayna markaa oranaysay Zamzam oo ah luuqadii ay ku hadli jireen, oo laga wado joogso. Waa tii uu nabigeena suuban ugu duceeyey maadaama ay isku xirtay biyaha Zamzam. Halkaas ayay biyaha Zamzam ka soo burqadeen. Magaca Zamzamna waxa uu bixiyey xaaskii Nebi Ibraahim ee Haajara. Biyaha Zamzam waa biyo uu mucjisooyinkoodu badan yahay, waana biyo kuu noqon kara intuba cunno iyo biyo. wax yar ila daawo mucjisooyinka biyaha Zamzam. saynisyahan u dhashay dalka Jabaan ayaa markuu cilmi baaris ku sameeyay biyahan barakeysan ee Zamzam ayaa wuxuu ku tilmaamay inaysan jirin biyo u dhigma ama biyo la tayo ah biyaha Zamzamka. Wuxuuna sheegay in hal dhibic oo ka mid ah biyaha Zamzamka haddii ay ku dhacaan 1,000 dhibic oo biyaha caadiga ah, inay biyaha caadiga ah yeelanayaan tayadii iyo barakadii ay lahaayeen biyaha Zamzamka. Sidoo kale wuxuu sheegay in aan la bedeli karin isku dhisyada ee ay biyaha Zamzamku ka samaysan yihiin. Soflik va sog'likni qadrlaydiganlar uchun Zamzam Water barakasidan bahramand bo'ling.